gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo wafdi balaaran uu hogaaminayo ayaa safar ku tagay deegaanada Qoryaale iyo Warcibraan deegaanadaasi oo ay saameysay abaarta ka jirta qaybo kamid ah gobolka Togdheer ma jiraan wax taakula ah oo deegaanadaasi la gaarsiiyay sidoo kale ma jirin qorshe daba socda safarka wafdigan balse waxa uu safarkan la mid ahaa kormeeradii kala duwan ay gudoomiyuhu ku sameynayay laamaha dawladda ee gobolka Togdheer bulshada ku dhaqan deegaanadaasi oo la hadlayay gudoomiyaha iyo wafdigiisa ayaa waxay u sheegeen inay ka daaleen safarada qalalan يعني كل ما نين واحترست ضدك هاي سامي سيابارتو culaysyo way jiraan ay kamid tahay abaarihii wadanka soo jiiray diifihii ay ka tageen oo ay caydhu kamid tahay xanuuno kamid yihiin electionkii la soo maray isba culays buu ahaa waayahaas oo dhan runtii way jiraan dadku jawaabtii kama hayo jawaabtii waxaanu aragnaa oo aad moodaa inaanu yara ashkatana ay naga tahay ama ergo dad timishla ah oo yiraahdo had iyo goor xogaan ururinaynaa oo shidaalada iyo lankaruusayaasha iyo labisyada nagu waala oo dadkii tacadiga iyo mushkilaadkaasi soo mareen handiya waxaanu leenahay handis iyo lugooy ay kuwaasi nagu hayaan aad baanu uga xunnahay maxay tahay xilli adag baynu ka soo baxnay dadka deegaankan waa xoolo dhaqatay ahaayeen boqolkii 95 way caydhoobeen maxay tahay maanaan arag wax caawima anagu gudoomiye waxa weeyaan waanu kuumina fadhinaa abaaro naafeeyay oo laba jirsaday yaa hayay reer miyiga iyo dadkaba abaaraha sida og tihiin abaar waxay soo baxday marka la laba jirsado reerkii toban u helay shanna waa cunay shanina way dhashay abaartii dabadda waxa la wax iibiyaan iyo wax wadaan mid waa garan waayay degmadu waa nabad xoga abaara ayaa yara jirta oo dadku aad iyo aad bixadda xilligan u jilcsan yihiin ilaahay baynu baryaynaa inuu ilaahay raxmadiisa inoo shubo gudoomiyaha gobolka Togdheer iyo xubnihii ku wehelinayay safarkani ayaa bulshadii ay la kulmeen waxay u sheegeen in safarkoodu ku koobnaa kormeer oo kaliya balse ay dib isugu noqon doonaan aanu ku kormeerayno degmooyinka gobolku ku kooban yahay oo aanu maanta ka bilownay degmada Qoryaale safarkan oo daaran in aanu u kuur gallo oo indhahayaga ku soo aragno xaaladaha dhabta ah ee ka jira dhammaan degmooyinka gobolka Togdheer waqti xaadirkan aan ku jirno ka dhawaajiyeen annaguna indhahayaga aanu ka arkaynaa runtii in ay muuqato ama ay jirto xaalad abaareed oo waxa weeyaan biyo la'aani ay ka jirto goobo fara badan ama tuulooyin fara badan oo ka tirsan degmada 22 tuulo ay ka tirsantay degmadu marka 3 meelood loo qaybiyo 2 meelood ayaa waxay ka jirtaa abaar iyo biyo la'aan badanaa safarada noocanihi ma sahlana maadaama la tagayo deegaano abaar iyo biyo la'aan ay isugu darsameen sidaas darteed waa laga maarmaan in dadkaasi la gaarsiiyo biyo iyo baad hordhaca waxay ahayd sanadii 2016 markii uu gudoomiyihii hore ee gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Aadan Qabo uu kormeer noocan ugu baxay deegaanada gobolka Togdheer balse kormeerkaasi waxa uu ahaa mid ka duwan kan hadda deegaan kasta ay booqdaan waxa la gaarsiinayay biyo iyo raashin taasi oo ka dhignayd in la danaynayo dadka ay abaartu saameysay waliba biyo la'aan buu badantay waxaan kan baab uga diraynaa dhammaan hay'adaha caalamiga iyo xukuumadaba inay dadka lala soo gaaro biyo iyo cunto labadaba way baahan meelaha qaar biyo la'aan baa ka jirta inteeda badan biyo la'aan baa ka jirta meelaha inta kalena cunto la'aan baa ka jirta waxa jira dad soo guuray oo meelo fog ka soo guuray oo waxay dabka carruurta u saaraan aan jirin ba xataa aan biyo haysan la garanay in wafdi degdeg la soo diro Shaafici Maxamed Ibraahim telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer